waxaa maanta annagoo u macnaynay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah intay soo jiraan weliba baarlamaanka u soo geliyeen ciidankaas oo aan ahayn ciidan bodyguard ah xaqiiqi ciidanka 3 dabaq fuuli kara ay intay iskala qaybiyaan ciidan aan yarayn oo labisan dharka xoogga dalka Soomaaliya oo abaanduliya amarka qaadan waay iyo ciidan kale dhar cad ah waanu garan weyn ciidan ka socdaanba taas waxay ahayd provocation xun waxaan rabaa inay shacabku fahmaan ummadda Soomaaliyeed ay fahanto ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga sugaya 20 iyo 30 iyo 40 iyo 100 uma babacdigi waay inta aan sheegay waa hakin karaan waana qaban karaan 20 wiil la wato iyo 30 qof iyo Cabdi Bilal la socda ciidanku intaasu saraakiil idin muuqata arkisan taliyaasha fadhiya awood looma waayeen in la xabadeeyo laakiin yey dan ugu jirtaa shakhs Soomaali inuu dhinto taas waxay tahay moral obligation in la isla qaato moral inuu qofku qaato warma is it worthy war suuragal ma tahay in adiga dartaa loo dhinto in dartaa dad xabada isku dhigan Soomaaliya nidaam yar oo aad mari karto oo sahal ah oo waliba madaxaad ka tahay inaad tiraahdo xoog baan ku jiirayaa waa handadaaya waxaan malaynayaa haddii madaxdu garan weyso ilaahay anaga waana garansiiyay ciidanka waxaan ku amray inaan hal xabad la ridin hal xabo sumcad xumada ee Soomaalidu u keenayso baarlamaankooda waa xabad ka dhacday qof kastoo damiir leh oo shakhsiyad leh oo muwaadinimo ku jirto waa dareemi karaa ceebta leedahay baarlamaankii baa la isku xabaday ciidanka amniga awoodda ma waayeen waxaan lahayn ha gartaan oo hadaayaan waa wax u baahan in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay dareyska militariga iyo kuwa booliiska iyo kuwa ciidamada dhan waa dad badan baa haysto shacaba ayaa haysta oo waliba qoriyo inay haystaan la og yahay laakiin markii la baaro ayaa waxa la ogaanayaa yani hay'adda ay ka tirsan yihiin sida rasmiga ah hadday militariga yihiin waxaan rabaa inaan idin xaqiijino guddoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dawladda xukuumadda qaybaheeda kala gudbisan iyo dadka mas'uuliyiinta oo dhan waxa waardiyeeya muxuu ahaa ciidan militari ah waardiyay hubkii militariga haystaan marka ninka muxuu ahaa haysta ciidan militari haysta hadduu la galo meesha inkastoo la baarahayo hadda sababta u galay marka waxa la ogaa inaan booliis iyo militari iyo qof qori wata inuusan gelin ayaa la ogaa sababta uu la galayna inaysan sharciga waafaqsanayn waa la sheegay laakiin ciddii fududaysay ilaa waxaa jiray ciidamo ka kooban ciidamada noocyada kala gedisan ka kooban baa joogay ciddii marka ogolaatay in cid hub haystaa ay gasho waa la raadinayaa waana la qabanayaa sharcigana la horkeenayaa marka saasaan rabaa inaan anigu u jawaabo